bulshada ku dhaqan kaamka Jameeco Caynaashe ee galbeedka magaalada Burco ayaa ka mahadnaqay deeqo iskugu jira raashin biyo iyo agab kala duwan oo ay ka heleen hay'adaha maxalliga oo ay ugu horeyso hay'adda Taakulo waxaanay bulshadani beeniyeen warar dhawaan laga baahiyay kaamka Jameeco Caynaashe iyagoo arrimahaasi iyo kuwa kale ka hadlaya waxa ka mid ah hadaladoodii waxaan halkan inaan joognaana waa Jameeco Caynaashe horta waxa mahad Ilaahay halkan isku keenay dhamaanteen ayaa mahadda guud leh inta adan kaga soo gudbo halkan waxay noogu keentay hay'adda Taakulo mashruuc 9 bilooda ay noogu keentay 9 bilood waxa iminkana soo gaaray 3 baa raashin bay yiraahdeen tiin dhaqaatiir la socota suuliyaal baa la socdo 13 iskuul ay yiraahdeen waa 2 qol oo macallimiinta laba anaga ka bixinayna yiraahdeen mashruuca anaga fulinayna yiraahdeen wayna soo gaarsiiyeen iminka waxaanu qaadanay bishii ugu horeysay oo raashina oo $870 ala qoys dadkaasoo ka kooban 250 qoys ayaana soo gaaray raashinkiisii biyihii oo yiraahdeen iyaduna 3 bilood ay weeyaan maalin walo joogta way noo yimaadaan waxa weeye iskuulka maxay hayto suuliyada yiraahdeen way idii qoraynaa hay'adda Taakulo aad iyo aad ayaan madaxdeeda sare maamulka sare aad iyo aad baan u salaamayna waan u mahad celinayna weeye intii hore hadii aan cid u iman waa loo yimi hay'adu waa qaabileen waxa uu yimi gobolka Daadmareed barasaabka iyo barasaabka xigeenka iyo hay'adahaas oo wada shaqaynayaaba waa u yimaadeen waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda Taakulo waa u timi 3 bilood oo raashina way u qortay oo raashin dhamaystiran biyina waa kuwaasoo halkaas ay ugu jiraan wax allaala iyo wax imika ka maqan ma jiro baahida dadku baa inta ka weyn inta ka maqanna waxaan ka codsanaynaa hay'adaha inay u keenaan waxa weeye dadku marba wixii hay'adi ka qorto ama dawladdu ay ka qortaa sideedaba ma gaari karaan wala gudoomiye ku xigeenkii dadku waxaan ku yiri hay'ada dawladda iyo hay'aduhu waxaan ku aad baan ugu mahad celinaynaa way nala shaqeeyaan gobolka Daadmareed aad baan ugu mahad celinaynaa marka anagu waxaan nahay maamulkii Jameeco Caynaashe marka waxaanu halkan ka cadaynaynaa maalin dhaweed inay meesha Jameeco Caynaashe ay duulaan ku soo qaadeen nima burca ka yibi inay duulaan ku soo qaadeen taasoo waxyaabo badan oo khalad ah oo dadka aantan ugu jirin ay ka duubeen waxaanu halkan ka cadaynaynaa haddaanu odayaashii deegaanka Jameeco Caynaashe nahay in hay'ada bayna soo gaareen hay'adda Taakulo bisha cas keer iyagoo ay soo gaabiyeen maamulka gobolka Daadmareed waxa weeye dadkani had iyo jeer in xun baa ku jirta marka inta xun had iyo jeer in warkooda la qaata maaha dadku waxaan ku yiri bisha cas Taakulo keer hay'ado badan ayaa noo yimaada marka hay'adaha badan nimcooyin bay keeneen marka waxa nimcooyinka in lagu mahadnaqo marka waxaan ku yiri in nimcooyinka in lagu mahadnaqo ilaahay baa mahad alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa sharaf leh cid kastoona caawisa sharaf bay leedahay waxaanu ku salaamayaa walaalahayaga islaamka meel ay joogaan basalaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu idin sheegaynaa walaalayaal dadka islaamka ah ee meel kasta jooga ee walaaladayada inayna soo caawiyaan oo dadkan barakacayaasha baahan soo caawiyaan xaq bay u leeyihiin waxa kale oo jira hay'adaha caalamka ee adduunka ee noo gurmaday na way mahadsan yihiin joogna magaalada Jameeco Caynaashe in gobolka Daadmareed halkan waxaanu joognaa barakaca magaalada Jameeco Caynaashe waxaanu nahay maamulka magaalada waxaana soo gaaray 3 hay'adood oo keenay biyo raashin baco iyo maxaan ku dhahay agab kaleba bismillaahir rahmaanir rahiim barkadu way maratay in yaro biyaaba noo galay dayrtu markay daaday deedna dhoobadii maalintan soo uga qaadnay ayay Taakulo noo timi waa taa barkadu buuxda waa Ilaahay mahadi waa Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker wararka telefishinka caalamiga Ariel TV degmada Jameeco ee gobolka Daadmareed